waxaanu halkan saaka uga jeedinaynaa bulshada reer awdal iyo reer Somaliland dhammaantoodba iyo ama dalka joogeen ama dawladda joogeen warar ka baxay idaacadda dawladdu gacanta ku hayso afka dawladdu ku hadla oo bixiyay wasiir ka tirsan golaha wasiirada sida ka warqabtaan shalay oo bishu ahayd 15 khamiistii waxaa booqasho ku joogay gobolkan awdal magaalada madaxdiisa Boorame madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Ahmed Mohamed Silaanyo iyo wafdi uu hogaaminayay oo laba maalmood booqasho ah ku joogay gobolka sida ka warqabtaan waxaa jiray tabashooyin xildhibaanadu hore u jeediyeen oo ay kala hadleen madaxweynaha markii uu soo gaaray gobolkan awdal taasi oo markii kulankaas lagu kulmay si fiican looga wada hadlay si fiicanna la isku afgartay sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyadu sida darteed waxaan u maleynayaa ama ay eg tahay inuu wafdigu watay labo afhayeen afhayeenka madaxtooyadu wuxuu sheegay wixii meesha ka dhacay exactly oo sidii ay ahayd halka wasiir ka tirsan golaha wasiiraduna war kale oo aan meesha ku jirin aan marna la isla soo qaadin u sheegay kaasoo oranaya xildhibaanada ka soo jeeda labada gobol dhaleecayn ay u geysteen madaxweynaha ayay qirteen apology ka bixiyeen marka waxaan u sheegaynaa waxay ka tuleen tabashooyinkii ay qabeen ee horey ay ugu jeediyeen xukuumadda warkaasna waxa la wax ka jira ma jiraan apology aan bixinayna ma jiro xildhibaanadii ka soo jeeday labada gobol baan nahay waxaanu kala hadalnay xukuumadda wax aan xaq u leenahay oo qiimo kasta ha joogtee annaan marna ka tanaasuleynin warka been abuurka ah ee wasiirka ka tirsan golaha wasiiradu bixiyana waxaan u aragnaa double standards inay tahay ama laba wajiileyn waftiga xukuumadda nagaga yimiday haddii laga hadlo qodobka apology-ga la bixiyey waxaa jira xildhibaan afhayeen oo ahaa kii hore oo Axmed Yasiin Sheekh Cali Jawhar Sheekh Cali Ayaanle marka isaga ayaan siinaya hadalka hadda wareejinaya assalaamu calaykum ya bacda salaam horta nuxurka hadalku waa intaa walaalkay sheegay waxa sax ahayd in madaxweynaha aanu horeyna tabasho ugu gudbinay dabadeedna aanu la kulannay uuna dhageystay ka garaabay nagana la ballamay in markaa laga dhigo in xildhibaanada tabashadoodii ay noqoto waxa laga bixiyay oo ay ku qaldanaayeen oo misleading lagu sameeyay misinformation dadka la siiyo waliba radio-gii dawladdu maamuleysay waxa ku hadlo ayaanu aad iyo aad horta uga xunnahay waxaan u baxay kaliya anigu imika waxa weeye qodobka xaal bay bixiyeen madaxweynuhu wuxuu noogu yimid gobolka yagii gobashayadii buu fadhiyay martibuu noo ahaa maamuus iyo karaamu nagu leeyahay anigu markii aan hadalka shalay markaanu la hadlaynay u baxay anaa qadintay oo Axmed Yaasiin ahaan idhi mudane madaxweyne haddii hadalladaydii qaarkood aad dhibsatay maanta martibaad too gobashaydii baad fadhidaay xaal baan ku siiyey waa shakhsiyad waa waxaan anigu madaxweynaha ku idhi kuna raali geliyo madaxweyne hadday hadalladaydii qaarkood ku dhibeen oo cabashada soo baxaysay baa ahayd tabashada wax ka duwan oo dhaleecayn iyo xukuumadda oo la mucaaradayo iyo waxba ku jirta marka waxaan idhi madaxweyne haddii hadalladaydii qaarkood aad dhibsatay raalli ka ahaw intiiba in loo misliil gareeyo loogu jahwareeriyo dadka in la yidhaahdo wixii ay tabanayeenba waa beenowday oo xaal bay ka bixiyeen taasi ma jirto xuquuq dadku leeyihiin oo ay xaq u leeyihiin wayna cidna marti uga noqon karin in ay xaal ka bixiyaan xaraam calayk ma dhacaysa taasi waxayna uu kala ballamay madaxweynuhu uuna ka garawsaday waana ka sugaynaa inuu wax ka qabto waana maasantii wassalaamu calaykum xaweeyi xildhibaanada labada gobol ee awdal iyo salal markii intuuna madaxweynuhu iman shir degdego oo aan gallay waxaan nidhi milgaha iyo sharafta soomaalinimo waxa weeyaan in madaxweynaha si fiican loo soo dhaweeyo
abaabulka waxaa noogu horreeyey afhayeenka labada gobol sheekh axmed yaasiin sheekh cali ayaanle ayaa markiiba naga kacay rashiid baa naga kacay cabdigaagaalaa naga kacay oo guddoomiyaha iyaga ah guddoomiyaha labada gobol salal iyo awdal way galeen magaaladii annagu ma yaraysanne qoladii salal magaalada joogtay kaca oo madaxweynaha ilaa dila si sharafa u soo dhaweeyaan waan soo dhaweynay si qurux badan baanu soo dhaweynay waa wixii dhaqanka soomaalida lagu yaqaan waanan isragnay madaxweynihi wax annagu xaal iyo tanaasulaad qadiyadii aan lahayn iyo saami qaybsiga yagii marnaba kama tanaasulay waxaan xaq u leenahay labadayada gobol mataanaan nahay lanamana kala furfuri karo wax walloo dhac canaasiir yari way soo bixi kartaa danteeda waxba kama jiraan canaasiirtaan madaxweynahana si fiican baan isku aragnay waxa laga abaadayay ee kelmado badan yidhina sheekh axmed yaasiin buu sheekh axmed yaasiin odayaashii annagii saaxiibadii ah waxaan ku qasabnay in maadaama kelmadihiisii ay adkaadeen au ka khafiifiyo odayga oo odaygana raalligelin siiyo axmed yaasiin baa raalligelin bixiyey oo yidhi shakhsiyan anu haddaad ka xumaatay kelmadihii oo yar adkaadeen madaxweyne xaal baan ka bixiyey intayada kale wax xaal bixiyey iyo wax tanaasulaad bixiyey iyo xaqa iyaga marnaba ma jirto